Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta qaaliga mar kale. Maanta waxaan idin wadaagi doonaa qiso cajiib ah oo ka dhacday waddanka Mareykanka ku dhawaad 2 sano ka hor oo ku beegnayd bishii August sanadkii 2018. Waana qisada qoyskii Watts ama Watts family. Intiina bilaabay faahfaahinta qisada, aan ku xasuusiyay inaad like saarto muuqaalka. Waad mahadsan tahay. Aan bilowno. Dhacdadan waxay ka dhacday waddanka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Frederick ee gobolka Colorado. dadka ay ku saabsan tahay qisadan waxay kala yihiin Chris Watts oo ahaa 30 jir oo ahaa aabaha iyo ninka qoyska, kana shaqaynayay shirkad batroolka oo lagu magacaabo Anadarko. Shannon Watts oo ahayd 30 jir, kana shaqaynaysay suuqgeynta dhanka internetka, ahaydna hooyada qoyska. Waxay isqabeen labadan qof muddo 6 sannadood ah, waxayna dhaleen 2 gabdhood oo lagu kala magacaabo Bella oo jirtay 4 sano iyo Celeste oo jirtay 3 sano. waxayna ahaayeen qoyskan qaar sugayay ilmahoodii saddexaad oo ahaa wiil, waxayna u bixin rabeen magaca Nico, waxaana ka harsanay dhalashadiisa muddo 15 wiiga. Shannon waxay ahayd mid mar walba kaga hadasha nolosheeda dhanka social media oo ku faafisa wax kasta oo ka dhex dhaca qoyskeeda dhexdiisa. waana kan muuqaal ay duubtay hooyadii Shannon iyadoo u sheegaysa ninkeedii inay leedahay uur kale. We did it again. I like that shirt. Intaasi waxay dhac ku saabsan xaaladda ay ku jireen qoysku iyo inta ay ka koobnaayeen. Aynu gudubnay imkana inta aynu ga jeedno qisada. Qisadan waxay bilaabatay maalintii taariikhdu ay 13 bishii August sanadkii 2018 kadib markay Shannon Watts ka soo laabatay safar shaqo oo ay la gashay saaxiibadeeda lagu magacaabayay Nicole, kana yimaadeen gobolka Arizona. iyagoo xilligaasna ahaa labadeedii gabdhood ee Bella iyo Celeste, qaar la sii jooga aabahood. waqtigan ay soo laabatayna wuxuu ahaa ku dhawaad 2 habeenimo, waxaana sheegtay Nicole inay saaxiibadeed soo gaarsiisay guriga oo ay kula heshiisay inay kulmaan bari 10 subaxnimo, micnaha ku dhawaad 8 saacadood markay nastaan oo ay ka nastaan safarka ay soo galeen. sababta ay u kulmayeenna waxay ahayd si ay Shannon ugu tagto dhakhtarkeedii dhalmada ee gaarka ahaa si loo eego xaaladda uurka. markii ay gaadhay subaxii dambe, Nicole waxay soo wacday Shannon wax ka badan hal mar, waxayna u soo dirtay fariimo tiro badan, laakiin wax jawaab kama helin Shannon. Nicole waxay istirmala aad bay u daalan tahay gabadhu safarkii awgii, waxayna wacday Chris oo ahaa Shannon ninkeedii si ay u weydiisay waxa ku dhacay Shannon. wuxuu sheegay inuu joogo shaqadii iyo inuu kaga yimi iyada iyo labadeedii gabdhood iyaga hurda guriga. markaasna waxay ku qasbanaatay Nicole in iyadu tagto guriga Shannon si ay u toosiso haddii ay hurdo ay ugu kaxayso cisbitaalka. intii ku jirtay wadadana waxay ahayd mid si joogta u wacaysa oo u diraysa fariimo, laakiin wax natiijo kama helin. Nicole waxay soo gaadhay guriga Shannon ku dhawaad 11 subaxnimo, waxayna bilowday inay ku qaraacdo albaabka iyo sidoo kale inay ka wacdo telefoonka, laakiin nasiib xumo wax natiijo kama helin. waxayna bilowday sidoo kale inay ka eegto albaabka oo qayb ka mid ah ay ka samaysnayd dhalo, laakiin muu ekeyn guriga inuu joogo qofna. waqtigaasna waxay bilowday Nicole inay u cabsato saaxiibadeedii xaamilada ahayd, waxayna go'aansatay inay la xidhiidho lambarka xaaladda degdega ah ee 911. sidoo kalena waxay wacday Chris oo ahaa Shannon ninkeedii, waxayna u sheegtay inay wax khaldan yihiin oo uu si degdeg ah ku yimaado guriga. askarigii wuxuu yimi goobtii ku dhawaad 40 daqiiqo oo duhurnimo ah. markuu yimi goobtiina wuxuu bilaabay inuu sameeyo isla sidii ay sameynaysay Nicole oo ahayd inuu ka eego muraayadda albaabka guriga iyo inuu waco telefoonka Shannon isagoo rajaynaya inay ka qabato telefoonka. wuxuuna sameynayay sidaas ilaa uu ka imanayay Chris goobta si uu u furo albaabka guriga. Chris wuu soo daahay, laakiin markii uu yimi wuxuu furay albaabkii guriga, sidoo kalena wuxuu furay albaabkii geerashka ee ku dhex yaalay guriga. gaadhigii Shannon wuxuu ahaa mid dhex yaala geerashka gudihiisa, laakiin lagama helin guriga wax raad oo ay leeyihiin Shannon iyo labadeedii gabdhood. waxa sii badatay cabsidii iyo warwarkii loo qabay Shannon, waxayna bilaabeen inay wacaan Shannon aabaheed iyo hooyadeed iyo walaalkeed si ay u weydiiyaan inay la joogto iyaga, ama ay u weydiiyaan in mid ka mid ah uu og yahay meel ay tagtay. laakiin dhammaan waxaasi wax natiijo ma yeelan, waxayna ku jawaabeen dhammaantood inayna garanayn meel ay qabatay Shannon. intii lagu guda jiray baaritaanka, Chris ayaa galay qolkii jiifka ee guriga si uu balgo raadiyo halkaas wax caddayn ah oo lagu ogaado meesha ay tageen xaaskiisii iyo carruurtiisii. waqti yar kadibna wuxuu ka soo baxay qolkii isagoo ku wada gacantiisa telefoonka Shannon iyo faraantigii guurkooda. wuxuuna sheegay in arrinkan uu yahay mid la yaab leh, sababtaa wuxuu sheegay inayna caado u ahayn in Shannon ay bixiso faraantigeeda guurka ama ay ka tagto telefoonkeeda marka ay u baxayso guriga dabadiisa.
laakiin intii lagu jiray baadhistan guriga gudihiisa wuxuu ka arkay askarigii baadhaya arrinkani Chris arrin aan caadi ahayn iyo in qaabka uu dhaqmaya uu yahay qaab lala yaabo. Tusaale ahaan markii uu soo gaadhay gaadhigii uu watay gurigiisii waxay ahayd inuu soo degdego oo u soo cararo guriga inuu furo, laakiin wuxuu sameeyey sida cagsigeeda. Wuxuu baqtiinayay gaadhigiisii muddo dheer, wuxuuna ka dhex waday gaadhiga dhexdiisa hawlo kale ka hor intaan u furin albaabka guriga. sidoo kalena wuxuu ahaa intii la baadhayay guriga mid iska wadooda telefoonkiisa, mana ahay mid ka caawinaya hawshan baadhista ay wadaan askariga iyo Nicole, ilaa uu ku qasbanaaday askariga inuu waco mid ka mid ah dambi baadhayaasha oo uu kala baadho gabadhii iyo carruurtii la weysanaa guriga gudihiisa. Markaas ayuuna bilaabay Chris inuu dhaqaaqo oo uu soo bixiyo faraantigii iyo telefoonkii aan hore u soo sheegnay. sidoo kalena Nicole waxa uu sheegtay markii uu yimi askarigu in Shannon ay u sheegtay in iyada iyo Chris uu ka dhaxeeyay khilaaf ilaa muddo dheer, sababta ugu weyn ee khilaafkaasina uu ahaa lacag ama dhaqaale, iyo inay isku waafaqeen sanadkii 2015 inay isfuraan, laakiin ay dib ka heshiiyeen. markan ay bilaabmeen shakiyada laga qabo Chris, laakiin haddana may jirin cadeymo si sax loogu cadeyn karo. wuxuu bilaabay askariga inuu raadiyo wuxuun cadeyn ah oo lagu ogaado meesha ay tageen Shannon iyo gabdhaheedii, wuxuuna helay kamarad ku xidhnayd albaabka xaafad la jaar ahayd oo u duubaysay wax si joogto ah. wuxuuna go'aansaday inuu u tago jaarkaas oo uu weydiistay inuu eegi karo waxay duubtay kamaradoodu, isagoo rajaynaya inuu ka heli doono wuxuun cadeyn ah meesha ama waqtiga ay ka baxeen Shannon iyo carruurteedu guriga. laakiin dhibtu waxay ahayd kamaradani may wada duubin guriga hortiisa, laakiin waxay duubtay wax yar oo ah albaabka geerashka hortiisa, waxaana duubtay kamaradu Chris oo kaliya ka soo baxaya geerashka isagoo wata gaadhigiisii si uu u tago shaqada. laakiin arrinka la yaab kale ee lagu arkay kamarada ayaa ahaa wuxuu ka soo bixiyay Chris geerashka gaadhiga ku dhawaad saacadu markay ahayd 5 daqiiqado, wuxuuna ku dhex qaatay waqti dheer gudaha gaadhiga ilaa uu ka dhaqaaqay guriga hortiisa 1 saac kadib markii uu soo saaray gaadhiga. intii la daawanayay muuqaalka ay duubtay kamaradu waxaa ka muuqday Chris wejigiisa khalkhal iyo cabsi. markii uu ka baxay Chris meeshana, dambi baadhihii la baadhayay askariga kiiska ayaa u sheegay askarigii inuu ka shakisan yahay in Chris uu og yahay meesha ay jiraan xaaskiisii iyo carruurtiisii, wuxuuna u sheegay inayna ahayn wax caadi ah in ninkan uu soo baxo shaqadan saacadan oo kale, iyo sidoo kale inayna caadi ahayn inuu muddo 1 saac ka hor qaato gurigiisa isagoo hagaajisanaya alaabta uu ku qaadan lahaa gaadhiga. maalintii taariikhdu ahayd 14 bishii August wuxuu noqday kiiskani mid la wada og yahay, waxaana bilaabeen dhammaan dadkii inay raadiyaan Shannon iyo carruurteedii. sidoo kalena FBI-da ayaa ku soo biirtay kiiska, waxaana bilaabeen dhammaan tiifiyadii iyo warbaahinadii inay ka hadlaan arrinkan iyo inay la yeeshaan kulamo Chris. intii ay socdeen kulamadaasina waxay ahaayeen qaabka uu dhaqmayay Chris iyo dhaqdhaqaaqyadiisu qaar la yaab leh oo sii badiyay shakigii laga qabay ninkan. tusaale ahaan wuxuu ahaa mid aanay ka muuqan wax muruga ah, mararka qaarna wuxuu ahaaba mid iska qosla isagoo ka hadlaya waayitaanka xaaskiisa, gabdhihiisa iyo wiilkiisii ku jiray caloosha. isla maalintaas oo ahayd 14 bishii Augustna waxa bilaabmay baadhitaankii, waxaana baadhitaanka lagu sameeyay cid kasta oo kaag dhaweeda ma taqaanay Shannon, waxaana ka mid ahaa dadkaas Chris Ward. waxaana baadhayay dambi baadhayaal maskax badan oo isaga dhigay inay la jiraan isaga oo ay la baadhayaan xaaskiisa. wuxuuna u sheegay dambi baadhihii in maalinta beriya lagu xidhi doono qalabka sheega beenta si aanu ugu soo aadmin wax shakiya oo loo ogaado inaanu la lahayn wax xidhiidha waayitaanka xaaskiisa iyo carruurtiisa. wuuna ku qancay Chris Watts arrinkan, wuxuuna ku kalsoonaa inuu si fudud ku khiyaami karo qalabkaas si lamida sida uu khiyaameeyay dadka kale oo dhan. maalintii labaad ayuu yimi Chris goobtii dambi baadhista si loo mariyay imtixaankii, halkaasna waxaa ka dhacay arrinkadiisa oo aanu ku talagelin oo ahayd inuu ku dhacay imtixaankii oo uu been ka sheegay dhammaan su'aalihii la weydiiyey, wuxuuna yeeshay kiiskii waddo kale. waxay bilaabeen kooxdii dambi baadhayaashu inay ku qanciyaan Chris inuu qirto haddii uu og yahay meesha ay joogaan xaaskiisii iyo carruurtiisii iyo haddii uu gaadhsiiyey wax dhib ah. Chris bilowgii wuu diiday inuu wax sheego, wuxuuna ku adkaystay hadalkiisii hore ee ahaa inaanu la lahayn wax xidhiidha waayitaanka qoyskiisa. laakiin maskax badnida dambi baadhayaasha darteed waxay awoodeen inay ku qanciyaan Chris in haddii uu qirto ay caawin doonaan oo ay ka yareyn doonaan ciqaabta. kadib baadhis socotay muddo 20 saacadood ah, wuxuu go'aansaday Chris inuu qirto inuu dilay xaaskiisii Shannon, laakiin wuxuu sheegay in Shannon iyadu dishay labadeedii gabdhood. markay intaas samaysayna uu go'aansaday inuu dilo iyada. kooxdii dambi baadhistu weli kumay qancin warka uu sheegay Chris, waxayna ku badiyeen cadaadiskii iyo waraysigii. markii lagu badiyey cadaadiskii ayuu dalbaday in loo ogolaado inuu la kulmo aabihii. dambi baadhayaashina way aqbaleen, waxaana ugu waceen aabihii Chris qolka, iyagiina way baxeen iyagoo rajeynaya inuu qirto waxa uu ku sameeyey qoyskiisii, iyadoo sidoo kalena ay jiraan kamarado duubaya wax walba oo uu sheego. sidaasna waa sida dhacday. Chris wuxuu qirtay inuu dilay xaaskiisii uurka lahayd iyo labadiisii gabdhood ee Bella iyo Celeste, wuxuuna sheegay inuu sameeyey sidaas
khilaafyada joogtada ay ka dhexeeyay isaga iyo Shannon muddooyinkii dambe. Kuma kaaftoomin inuu dilay oo kaliya, sidoo kale wuxuu go'aansaday inuu ku qariyo meydkooda meel aan ku soo dhacin maskaxda qofna. Kadib markuu ku dilay ciijin, wuxuu ku riday meydkoodii sanduuqa dambe ee gaadhigiisa, wuxuuna aaday meel ka mid ah meelaha iskale ay shirkadda uu shaqaynayay si uu ugu soo qariyo halkaas meydkooda. Markii uu yimi meeshiina wuxuu qoday god dheer si uu ugu aaso Shannon iyo ilmihii ku jiray caloosheeda. Wuxuu ku riday meydka labadiisii gabdhoodna 2 taangi ama foostooyin oo ahaa kuwii shidaalka. Waxay bilaabatay maxkamadaynta Chris maalintii taariikhdu ahayd 21 August, waxaana lagu soo oogay dilka darajada koowaad 4 qof oo kala ah: Shannon Watts, Bella Watts, Celeste Watts iyo Nico Watts oo ahaa ilmihii ku jiray caloosha. Waxaana lagu xukumay Chris maalintii taariikhdu ahayd 6 November sanadkii 2018 xukun dil ah. Laakiin waxa dhacay arrinkiisa oo aan la filayn oo ahaa in qoyska ay ka dhalatay Shannon ay dhibanayaashu ay diidaan in la dilo Chris, waxaana sheegeen in aan loo dilin gabadhooda iyo carruurteeda, ninkii dilay oo ahaa aabahood. Maxkamadiina waxay ogolaatay dalabka qoyska Shannon, waxaana lagu bedelay xukunkii Chris maalintii taariikhdu ahayd 19 bishii November sanadkii 2018 xukun xabsi daa'im oo aan lahayn wax shuruud ah. intaasay ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. Hayloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto, subscribe na saar haddii aad ku cusub tahay channelka Ogaal Cusub. Waad mahadsan tahay.